waxaa maanta garoonka Hargeysa Stadium kulan xiiso leh ku dhaxmaray labada xul qaran ee gobolada Sool iyo Daadmareed. ciyaartana qaybtii hore waxay ku bilaabantay jawi degan iyo xamaasad ay labada taageero ay soo bandhigayeen. xulka gobolka Daadmareed ayaa qaybtii hore ciyaarta casaan laga siiyay ciyaaryahanka Carabo kadib markii uu ku qaldamay ciyaaryahan kamida ciyaaryahanada xulka gobolka Sool. ciyaartoyada xulka gobolka Daadmareed ayaa ku ciyaarayay 10 ciyaartoy waxaana qaybtii hore ciyaarta lagu kala nastay eber iyo eber. qaybtii labaad ee kulanka markii la isku soo laabtay lana soo tashadeen tababarayaashooda ayaa u suura gashay xulka gobolka Daadmareed inuu shabaqa ku hubsado goolkooda koobaad daqiiqadii 60aad oo u dhaliyay ciyaaryahanka Daud Lucio ciyaartana ka dhigay hal gool iyo eber. xulka gobolka Sool ayaa isna weerar xoogan qaaday balse xulka gobolka Daadmareed ayaa goolkoodii labaad la yimid waxaana u saxeexay goolkaasi labaad Wardi Axmed daqiiqadii 63aad ciyaartana ka dhigay 2 gool iyo eber. waxaana kor u sii kacay xiisaha iyo xamaasadda iyadoo saacaduna ay ku sii siqaysay daqiiqadihii dhamaadka ee ciyaarta. daqiiqadii 7aad ayaa xulka gobolka Daadmareed uu la yimid goolkooga saddexaad waxaana u dhaliyay Sharmaake Tom ciyaartana ka dhigay 3 gool iyo eber. waxaana gabagabadii goolasha ku soo khatimay xulka gobolka Daadmareed oo dhashaday goolkooda afraad ciyaartuna noqotay 4 gool iyo eber. guud ahaan kulankii xiisaha lahaa ee dhexmaray xulalka gobolada Daadmareed iyo Sool ayaa ku soo dhamaaday 4 gool iyo eber ay guushu ku raacday xulka gobolka Daadmareed halka xulka gobolka Soolna uu caraabay. dhinaca kale waxayna dhinac socday ciyaaraha orodka oo ay ka qayb galayeen 14 gobol ee Somaliland iyagoona maanta la soo gabagabeeyay. mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka warbixiyay sida uu u soo gabagaboobay tartanka orodka ee gobolada Jamhuuriyadda Somaliland. waxaa halkan maanta noogu soo gabagaboobay baan oranayaa ciyaaraha fudud ee Jamhuuriyadda Somaliland oo ay ku tartamayeen 14 gobol ee Jamhuuriyadda Somaliland ka kooban tahay. maanta wuxuu ahaa orodkan qaban orodka loo yaqaan 5000 orodkaasi waxa weeyaan cabir ahaan garoonka marka laga hadlayo waxa waa 12 wareeg iyo badh. orodkani wuxuu ahaa orodkii maanta ku soo khatimayna ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Somaliland. marka waxaan maanta halkan ka shaacin doonaa sida goboladu u kala guuleysteen. marka kaalinta koowaad waxa ku guuleystay tartankii ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Somaliland gobolka Saraar. kaalinta labaadna waxa ku guuleystay gobolka Hawd. kaalinta saddexaadna waxa ku guuleystay gobolka Maroodijeex. kaalmaha afraad iyo shanaad iyo lixaadna waxa kala galay kaalinta afraad waxa galay gobolka Sanaag. shanaadna waxa galay gobolka Daadmareed.